السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال ومكان وشؤون الحياة. إلهي سبحانه وتعالى أيام هذا بفضله ومنه وإحسانه. الله سمارت وقال سيسألك الله أول آخر مارتي بن آدم نقدقي سأكل قرن سحن محاقل دن محا أسو جوكتا محاكو مغنية كما تهي أديك حقي كتم حقي أسو عطا حقي جوكتا حيته رجال هذا dadkaagu noloshoodu waa sidee xagee ku maqan tahay maxaa haysaa maxaa kaa maqan maxaad rajaynaysaa dil suga soo maahid aabbaha yaa dilay adiga yaa ku dilay maxaa taqaanaa waa maxay rajada mustaqbalka ilmahaaga aniga iyo kuwa aan ka mid kahayba wax raja oo tiro badan إلهي حقي كما قوسنا إنه لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إنكم ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. إلهي أكتسم حدودنا ودمنينا أذكر ودمنينا لكن maxaan ka walwalsanahay oo murug tira badan ugu haysa waxaa murug ka murugaysanahay wiilka aabihiis asagoo hooyadiis ay hayso oo yaroo 3 jir 4 jir la dilay oo walaalkiis anigu aan soo duugay ee asaga inta shalay loo yeeray kursigaaga la isku haysta inta liid degdeg muqdisho u soo gal 500 oo xab gaarigiis inta lagu dhuftay 500 oo xab inta lagu dhuftay gaarigiis وزي عمر فينيش هالشيء وأفكيس إيكو هادليا دادكي ديلكا جيستي يشقداس لما يستر تقاب صدي إليهين إلهي بان إذن كبدا أرشي إلهي بان إذن كبدا أرشي عايرو موحان ما أنت فهمي كرن ما أنت شقدا أنا غانو كلا وامحي قاري اللي حبدي هدي أنقرن وينو قاري اللي حبدي أردايا واللحلحرا وغلوعدا gaari taagan 500 oo xabo in dhanka ninka uu Cabdixakiin dhagajood meeshuu fadhiyo laga soo geliyo isla markiina looga jawaabo Umar Finish leeyahay hadal xabada isku dhaco ku dhintay shaqada aan naqaano jaamacadaha aan ka soo baxnay oo kale waa xagee tolkay cayro jaamacad kale ma naqaana jaamacada aan garan karno waa baabuur socdo la xabadeeyay baabuur taagan oo la xabadeeyay xabad hal dhinac ka socota la ilaaha illa anta subhanaka mayd garaaca maskaxdanada ku dhacaya aan idin waramo innakum maytun wa innahum maytun thumma innakum yawm al-qiyamati 'inda rabbikum taqtasimun. ilaahay agtiisa ku doodi doona laakiin waxaan rabaa inaan ku sheego 40 maalmood waxaa xabsi ku jira jan dhagajoon Cabdiraxmaan dhagajoon Cabdixakiin dhagajoon walaalkiis ayaa xabsi wuxuu ugu jiraa farmaajo ninkaas waa nin shacaba oo baabuur yar ku shaqaysta jaadka Itoobiya ka keena waa nin dhalinyaro oo shacaba oo reeyaan la waa nin dawlad u shaqeyn ximaayada qabiilku waxay nafaraysaa nin reeyaan la dhaawaca inaa qaadi kartid niman reeyaan la dhaawac oo qaaday Itoobiya u geeyay wuxuu u xiran yahay nimankaas dhaawaca niman mareexaanahay dileen 40 maalmood ayaa walaalahan Salebaan wiilkanagii u haystaan maxaa yeelay cayr meyd bari waaye cayr wax ogaana male galmudug waa ku meyd bari cayr muqdisho waa ku meyd bari baarlamaan waa ku meyd bari shabeellada hoose waa ku meyd bari muqdisho waa ku meyd bari beterilow waaye cayr oo dhan beterilow waa beterilow that's why aniga caaw mara gududan aan u wata that's why aniga qalbiga uu hugmaya hugum baa ka dhaxyeeriya hugum baa ka dhaxyeeriya la ilaha illa anta subhanaka fiiriya Cabdixakiin dhagajoon xaaskiisa aabaheed waa la dilay ismaan juxun waa la dilay Cabdixakiin ilmihiisa hooyadood aabahood waa la dilay amxaaradiis Cabdixakiin aabihiis waa la dilay walaalkiis
anigaa soo duugay waa la dilay cabdixakiin waa la dilay wiilka cabdixakiin waa la dilaa aniga waa la idilaa adiga waa lagu dilaa koofi waa la dilaa caliyaraha maskiinka hawla sheegaa saacadda ugu dambaysa waa la dilaa kuwa ka sokeeyey waa la dilaa kuwa xidigaha lagu taxay waa la dilaa dhammaantiin waa la idin dilayaa oo wallaahi billahi tallahi kan dhuusa mareeb jooga ma hadli karo kan xalan buuri jooga ma hadli karo kan qalanqalla jooga ma hadli karo anigoo meeshaan jooga hadalkayga waxaa igu haysta 200 oo mareexaan waxay leeyihiin jamaalow maxaa u ooyeysaa ooyintii islaamihii walaalahay ahay ascad ay shalay ka ooyeen gaalkacyo waa lagu caayay waxaa la yidhaha wiyow ooyinta joojiya ilaahay baa idinku dhaarshay libaaxu neefka ou qabsado guuxiisa afkau ka qabtaa waa aamusiyaa la ogisi kale saysa ugu imaanin walaalaheen mareexaan maanta waxay marayaan inay dhahaan maxaa la ooyeysaan maxaa yeel qoortana u dhiibanay ugaaskanagu waa kii farmaajo u ducaynayay ugaaskanaga firi cabdixakiin dhagajoon walaalkii waa la hadlay aqarana leef lagama fiirsado walaalkiisa waa la hadlay asagoo noolaan la hadlay waxa uu ii sheegay in gaari bulid burufa uu diyaarsaday inaa lillahi wa inaa ilaahi raajicuun waxaan ka naxsanahay cabdixakiin oo maanta dhintay kama naxsan laakiin waxaan ka naxsanahay mustaqbalka madoobaday sidana loo kufsaday sidaan u jabnay sidaan u aanay naxnu rohingaan nahay tirsiga nalaku buuxsado qiimo beelay tala beelay hoggaan beelay isku tasha waay 100 u dhintay walaalahay mareexaan 10,000 oo qof ayay si qaldan iyo si toosa ay dadban u dileen nin ayaa la cayra oo ilma adeeraa nin mareexaana oo wagardhaca isagoo sargaalaho wuxuu ku dilay meeshii la dhihi jiray waa nin mareexaana magaciisa waa i qoray buga igu qornaawo waxaa la dhahay ina qaasim dheere cunaaye alaaliya cunaaye waa nin mareexaana wagardhaca ninka ou dilay waa nin ree orayo abtigey 10,000 oo qof ayay si kama iyo si qaldan iyo xabad miiftaanna loo kaga dilay qof kasta oo cayra markuu dhinto ninka mareexaanka wuxuu soo qaadanaa siraaji oo hal xaba lagu riday 500 oo xaba gaari lagu dhuftay iyo dad maaragtay la xasuuqay kuwa kabahooda lagu dugay intaasuba mareexaan waxayna soo agdhigay nin hubeera oo hal xaba inta lagu riday ninkii xabadda ku riday tiibisha ugu dhex dhimanayo xabsiga muqdisho waa dabla caydidi halkaas nin ayaa 10,000 oo qofkii dhintaba waa la soo agstaajinaa mareexaan waa soo agstaajinayaan laa ilaaha illa ant waxaa moodaa in cayroo dhan isugu tageen dab ninkii la dhihi jiray siraaji oo cayroo dhan inta xabada qaateen ay ku fureen oo cayroo dhan ay go'aamiyeen oo ninkii dhibka geysto ou baxsaday waa u xiran yahay kii xilka hayo waa laga qaaday waa ku xanuunsaday nafu kuma jirto inuu dhintaa ka ficneed dabla caydiid inuu dhintaa ka ficneed wuxuu rida baas ma ahayn istaaf gaari oo hal xabuu riday wambaladu riday dambi weyn aan galleeleyn mareexaan waxay kaba nagu duugeen baabuurtii fiiriye cabdixakiin dhagajoon walaalkay waxaa dilay farmaajo iyo ninka la leeyahay kulanajiis nimankaas reer diini oo aarsanayay xisaabtan ay ugu qorneed in cabdixakiin dhagajoon walaalkiis ou qaaday nimankii reer ayaanle ee mareexaanka isgaadgaadayeen nimankii mareexaan qoryo wateena 3 nin ay ka dhaawaceen oo cadaada ku xiran ayuu qaaday sidaa awgeed cabdixakiin walaalkay waan ka wada hadalnay laakiin xamar uu yimid malagiisa uuna soo doontay sidii u munaasabadda xilligii gabagabaa weliba cabdixakiin waxaan ku ballannay dowladdaanu intay naftu ka baxayso oo waqtigeedu dhammaanaysa xamar ha tegin waayuu ugu yidhi shalay markaan arkay waa la yaabay uu soo dhigay horaan ka wacay xalay maan waaya 4 sac waana seexday aniga waxaan kula ballamay dowladdan inta waqtigeedu dhammaan inuusan tegin cumar finish waxaa loo dhiibay oo anigu aan ka warqabay cabdixakiin xilka in laga qaado isagoo dhaawaca oo cabdixakiin hadda wuu imaanaya wuu istaagnaa karin laakiin cabdixakiin hadda ma soco karin anigu waa ka warqaba wuu istiilayay nin adagow ahaa wuu istaagayay laakiin saadka weyn ee jilibka
ayaa taagan oo go'naa cabdixakiin toosna uma soco karin birow ku soconay si uu lafihiisa u caynsada deg deg inuu u yimaado barasharka haystay waxaa ka mid ahaa ninkii la dhihi jiray ninka loo maraya ninkan iyadoo waxa badan la isku dhufsaday oo la isku dardaray isla xalay marka uu dhintay ninkii shalay yimid cumar finish waa ku dhawaaqay in isku dhac gaarin israaf korka saaran yahay nal taagan ciidan soo ag maray 8 saaxiibaynimo ay tahay baas in lagu furo baaska la furayna uusan kala go' lahayn 500 xabo lagu dhufto isla markiina laga jawaabo waxaa lagu dheelayaa caqliga naga lagu dheelayaa kuwa naga dhintay caqligooda lagu dheelayaa kuwa naga nool caqligooda lagu dheelayaa kuwa soo imaan doona caqligooda lagu dheelayaa fahmadda nadaa la garaacayaa oo wallaahi billaahi tullaahi oo wallaahi billaahi tullaahi oo wallaahi billaahi tullaahi sidaa awgeed walaalayaalow haddaan cayrnahay waana la xaqiray annakaa isxaqirnay waxaan rabaa inaan u sheega caawa walaalkii kofi your battery is low kofi oo batterigaaga waa low battery batterigaaga waa halgana ku jirta halgana ku jirta batterigaaga your battery is low batterigaaga waa dhacay ilkahaagana waa sibmeen goobsahaagana ilkaaga ciridkiina waa baxay iyo kuwa lamidka oo dhan horeba waxaan ugu sheegay anigu waxaan sugaya 2 afle iyo maxay la 4 sano markay dhamaanayso waa la afjaraa cayrka waxa loo dilaha markay idin sheegaa oo Sacad iyo Saleebaan aan loo hormarinayn haddii Sacad iyo Saleebaan la dilo Sacad iyo Saleebaan cayrka si fudud ay ku heli karaan waa fuyuus dhaga fudud yaa habar gidira tol beeli markii la yiraahdo cayr waa la helaa laakiin cayr haddii la dilayo Sacad iyo Saleebaan waa fiirsanaya Saleebaan waxay taagan yihiin arma cayra la dhamay karaa waa iska adkaaha Sacadna waxay taagan yihiin haddii ilaahay guriga cayr ninkii magacsa iska dhicinaya waxba ii keeni maayaan garab ma isiinayaan ay ka ra'iisul wasaare dadkayga waa la dilayaa dhibaato haysata laakiin cid kasta waxay og tahay haddaan habar gidir cayr laga dilin oo aan laga bilaabin haddii Sacad laga bilaabo 5 nimo Sacad haddii la dilo 5taas nimo Sacadka 5 daqiiqo 500 nimo cayr way helayaan cayrow habar gidir isu kaan marka la dhaco soo ordaw taga waa iska laab xaaran yahay yaa dilay Sacad yaa dil waa gala xamar guriga abdi qaybdiid 500 cayr ha taagneed intaas Sacad imaanin Saleebaan haddii la laayo Muqdisho lagu laayo ee Saleebaan dhaal talbeelay cayrka kaliya ordaya na galiya iska leeyihiin sidaa awgeed walaalayaalow annaku waxaan noqonnay dadkii istiqaamadii yeela waayey walaalaheen habar gidirna waana xaqireen dhuusa mareeb waxay maraysaa tuug ma aragtay ma arkinde shabaab inta maraa ha sheegin shabaabna waxay taagan yihiin cayrka sana dhaqa daaqaaye geeliina ama la aada xagga jidka xagga kala mara waqooyi la aada ama gadaal naga mara annaka raaciideen aan noqotayn meesha ma deganaa kartaan qorqorna muxuu taagan yahay shabaab ma aragtay ma arkinde tuug ma aragtay ma arkinde sidaa awgeed walaalayaal caawa aniga maragoodana ay xiran ilaahay baan ku dhaartay ilinta iga socota qalbiga ay ololayo oo wallahi billahi tullahi qalbiga ay ololayo wallahi billahi tullahi wuxuu qalbiga ila ololayaa cabdixakiin hooyadiis maxaan u sheegaa ayadoo dhalin yar oo qurux badan ayaa ninkeedii la dilay ayadoo dhalin yar oo qurux badan ayaa wiilkeedii la dilay oo wiilkeeda kale la dilay oo wiilkeeda kale la dilay maxaan u sheegaa walaalihiis maxaan u sheegaa gabdhihii la dhashay maxaan u sheegaa cida gabdha ka soo hareen ya maxaan u sheegaa laa ilaaha illaa anta subxaanak sidaa awgeed walaalayaal xanuunka jira wuxuu yahay cabdixakiin walaalkiis caawa waa xiran yahay tolna male wuxuu u xiran yahay see nin ayaan laa u qaaday annaka ree ayaan laa anigoo jamaala farmaajo ninka ii soo xabadeeyo ree ayaan laa aniga waa qaadaya taasna waxaa qoraya sharciga qabiilka qoraya waxaan rabnaa niman ree ayaan la halalaayay yaa loo soo qabtay tolbeelay yaa loo soo qabtay inta nimanka reer marixaan ree ayaan la aan lalayn gaari cabdi bilaa
قري ساري هي ورأي لليهين وننكر رأي لتكنايو أي أن المريحان ولا بحصري بلو يلا قور سوما غادي كرو فقي سوما غادي كرو وينها قردين ولا ليه سعدي سليمان لغو هاي نقبتين هبر قدر نمد عن لنهي ونقود الليستين حلك إنه هيان ونقود دباتيان رئيس وزاره ونقود دكتي وانا حقري ورغ بينهم نوسو قرية إلما أدي الريال هبر قدر وانهي إلهي بان نقدقي لكن هقر دونو بويني نقل سعدي سليمان قور وانا حري هبك النقي والا غاتي دادك النقي والا اللاي المها النقي والا حري قبلها النقي والا حري كو النقي هنلاي والا حري ديقانا النقي واقعدون دادك النقي مانتي حوالي أيكا مدح فرشك الغادناي ملكي لك منهن قلمدو مقدشو ملكي لك منهن دولد ملكي لك منهن كوفر قلبك ملكي لك منهن مقدشو نميت كنقا ورن بين بانو لو شيقيا وانو لكو شركو وانو لكو البرطي waxay isdagaalaan marixaan waa annaka gurmad iyo hiil aan naga dhaxeeyay laakiin isu lagu qabasho iyo xilliga reer qumas ay noo qabteen annaka ayr waana la barkaday oo wallahi waana la barkaday manna samata bixinaayo inta caliyara noo dheer caliyarana nin kasta oo farmaajo u jilicsan ayuu u jilicsan yahay sidaa awgeed igar maqareeya oo dhan kasta loo maalayo waxaan ogaaday kumbaleel in hawiye bajabay waxaan ogaaday oo hawiye meesha uu ka jabay anugu kamid ahay waxaan ogaaday marka Khadiija Diiri ay tiri madaxweyne farmaajo u fiican kursiga degmo malihi magaalo malihi jawharan hal guri ku leeyahay xildhibaankana hawiye dhexdiisan ka noqdaa khayr isku maanan dhaweyn ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya ninkii mariixana u fiicnaa إلى عاو مريحانا أدقي أقو مالك كاسان وحن أقادي شالي وحن أقادي إن وي أو تجي جبي هوجي باي محيي هدي أكتر غادي جديري هوي إنه ضد وحصوصنا يجي رئيس الوزراء نكي مريحان وعبد الولي يولك أفعنا مدحوينا فرماجة أفعن وقعد على البدن كرسينا دارات كما سود حلايا جوهرا أنا يحرى وهل أن تولك لهين أيان كقاعدنا إني مقدسك نحتر هذا مدد كاسر نول إلهي بنقول درسي example وننت ربنا أدو هلب أباهم إيانين مدي إيدكسي إيدبوتا وننت ربنا إيانين مدي إيدكسي دبوتا يا غاعي لهد يا تلاشركو بلهد دكسيغا iyo midida dabka ninka wata maxaa yeelay hilib rabtaa wanan kuna macnaha waxa ku cunto meesad Khadiija Diiriye walaalahan daarood waxay wataan midi iyo diksi iyo dabay wataan hawiyana waa hilib isku karayso way hawiye sida awgeed wan isku karisa iyo nin daarood oo mididiisa iyo xarigiisa iyo digsigiisii wata Khadiija Diiri waa saxan tahay maxaa yeelay aniga laftigayga hilibka ilkaa kuma cuni kare ninka digsiga midooda raaci lahaa Khadiija Diiri magaalo ma leh tuulo ma leh meelna ma leh hoodaale qeyrta ninkeed hoodaale iyo xasan shiikhi iyo kuwaanaysa markuu hadda dhacay iyo nin kastoo ag taagan markii dab ku jiray iyo maalin inay cayr noqoto maalin reer abtigay abgaal dhahdo waa ku soo martay laakiin markan waxay ogaatay satigii waa dhacay dibigii weynaa waa kufay sida awgeed waxaan rabaa walaalayaal Khadiija Diiri ka fiiri hawiye dabadiisa Khadiija Diiri ka fiiri mustaqbalka hawiye Khadiija Diiri ka fiiri afkiisa rajada hawiye Khadiija Diiri ka fiiri anigoo cayran waa usii hooseeyo waa jabay oo hoogay oo gurceel ku jabay oo dhuusamareeb ku jabay oo xeraala ku jabay oo garijir ku jabay oo ku jabay meeshii la dhihi jiray hadii Ilaahay ku roon yahay batabaan oo ku jabay hadii Ilaahay ku roon yahay jiracle oo dadkayga meel kasta lagu dilay hadii Ilaahay ku xirsi lugay oo cid wax ii soo qabatay la arkin oo laba dhinac la ii dilay oo Mariixaan Muqdisho igu dileen oo garijir igu dileen oo cali meeshii kale igu dileen yaana marag ii furaya waxa ugu marag furaya
ninkii la dhihi jiray nin walaalkaya oo haddii ilaahay ku rooyay isirkiisa aan aqaan oo abgaal sheeganaya ay ugu marag furayo leh ninkii xabada isdhaafaha ku dhintay gaariga uu saarnaa 500 xabaa ku dhacday waana taagan yahay sidaa awgeed walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego imisa isku karisaanahay waxaa la dadbay hooyooyinkii ooyayey ilmahanagii naga maqnaa tenshankii waa la wareejiyey waa isku karis waxaa la isku kariyey ree ayaanlihii la laayey cabdixakiin maadaama ninkii dhaawac qaada oo la dhashay waa loo yeeray kulanajiisi farmaajo waa boobsiiyeen waa isku karis kale waana la dilay hubkanagii waa la dhacay balanbal baabuurka ree ayaan loo yaalla farmaajo ma keeni karo qoorqoor ma keeni karo ra-iisul wasaare ma keeni karo kama hadlaayo fiqi warkiisa daa ilma adeerayaalow habargeer aan wada ahaano laakiin in aan kala baxno oo nin walba deegaankiisa soo u noolaa lahaa ayaa habboon hagar dunuub weynaa naga gasheen sacday saleebaan hagar dunuub weynaa naga gasheen waxanaga ma keeni kartaan hubkanaga nooma keeni kartaan dadkanaga waa xiraysaan qofna nooma soo qaban kartaan adinkaa saaka u dheer dowladdii hortina nol kugu been abuuranaya ma waxaan aniga aaminaa saaki in gaarigii taagnaayo 500 xabo ku dhacday in la yiraahdo isku dhacu ku dhacay imisaan kor iyo hoos u jabnay fili waxaa kalifaya waa qabiilka cayrka laleeyahay waa qabiil aan ugaas lahayn waa qabiil aan nabadoon guud lahayn waa qabiil aan nabadoon qaasa lahayn waa qabiil aan hogaamiye lahayn waa qabiil saakay ninka ugu dheer oo farmaajo saaxiib leeyahay laa ilaaha illaa anta subxaanak laa ilaaha illaa anta subxaanak sidaa awgeed war qurxoon iyo hadal qurxoon waxaa sheega nin rajo qurxoon leh walaalayaal wax quruxa oo habargedir dhexdeeda taalla ma jirto habargedirtu dhooshay ka qoslaysaa waxa igu dhacaya ra-iisul wasaare zacad iyo beeshiisa dhooshay ka qoslayaan waxa igu dhacaya in badanaa ka xun waa oga in badanaa ka xun waa oga waan dareemaya in habargednimadu ku jirto laakiin waxay ka hoosaysaa anigoo ra-iisul wasaare ah saaki oo adiga dhibaato lagu geysanayo qaar gurmada iyo ciidana ay heli lahayd laakiin ra-iisul wasaare roble markuu yimid gabdhaha ceyr muqdisho waa lagu dhex badayaa bam xabadaa lagu ridaa xabadaa lagu ridaa xabadaa lagu ridaa baasaboorradana waa la qaataa sidaa awgeed ogaada wax kale noogu samay maysaa nama necbadin laakiin ceyrka ilowsha dhow hawiye originaala waaye inaa idin uloobayna umalaysaan waan duubaynaa waana idin xasuusinaynaa waana idin xasuusin doonaa waana ka baxaynaa waanu hubaa inaan wada degno maahe inaynan keliga kacin waa wada degaynaa le keliya waadna eedaysaan degidda aan degay ayaad eedi doontaan nabarka aniga ugu dhacan waa u dhimanaysaan waxay idin la tahay in laydin jecel yahay wallaahi waan laydin jeclayn oo bilaahi oo tallaahi laakiin gurmadkaa laydinka dilaa marka hore gurmadka iyo dhaqdhaqaaqa laydinka dilaa ninka walaalkaa kuu qalbiga xaaran oo saaki sacadi salabaan ilbirqsi iyo jufadii rabta ceyrka casi kartaa ilbirqsi muqdisho ilbirqsi haddii odawaa saaka u dhaho tolbeelay ceyr o dhan waa helaa sidaa awgeed walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin sheego halkan aan uga tacsiyeeyo hooyaday macaan cabdixakiin dhagajuun hooyadiis laa ilaha waxaan kuu samayn karma walaashay qaali xalaawi sweden joogtay iyo gabdhaha kaloo jooga gabdhihii kale oo jooga haddii ilahay ku ridayo turkigu kuwii joogay haddii ilahay ku ridayo gurceel kuwa walaalkood soo daysan waayey oo walaalkeen naga xiran yahay kuwa walaalkeen laga dilay kuwa beenta lagu been abuurtay kuwa walaalkeen oo shabaab dowladdaa qarxisay inay qarxisay waxaad ku caddaynaysaa ayadiiyaa maanta dishay markay dishay meeshii la baari lahaa si hordhaca wax diyaarsan inay ahaayeen horaan looga jawaab waxa la yidhi isku dhac fakayfa isku dhac maxaa yeele cabdixakiin waa cayr waa ree ayaan le
وما يران ودد كلية يغانا إن دبك الوصول ودد أن أغون سيدي مقالو لغون ولا لها ودد دوني مقالو إنو كو جوغان اسكغن ولو تولكيو بلد لغو مجوغة تلبدني بلد وحا لغو جوغة تلبدني بل سدح مرة أقول عليه تولكيو بادية لغو جوغة لانديري بادية لانديرو لغو جوغة يجيلة بلد وحا لغو جوغة تلديري بل سدح مرة أقول عليه تولكيو لانديري بلد لغو مجوغو بلد وحا لغو جوغة تلديري بلد وحا لغو جوغة تلديري بادية وحا لغو جوغة لانديري بادية وأنا ترى بدن تهي وترى بدن تهي ساسا بادية كون ولا كرتا ولا قال لي حنا جيلك لما تابكر قبل هذا قولي بلد هدا دونيسد وإن تلات إرتاي وإن تغنى دبك كوجاري وإن الحسوس لهذا وإن أد وحقرتا وإن أد وحضوبتا وإن أد وحسوستا وإن أد جرانيسا عندك كوجر جاريسا عندك حمانيسا وإن أد جران كرتا قلت كيشنا لقى غنيني لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك شلي قلت كي لقى غير وأنا جران كرتا وأنا جران كرتا قلت كي والك أباها لقى غنيني وأنا جران كرتا قلت كي والك لقى غنيني وأنا جران كرتا ما أنتي والك عبد الحكيم وحبا مجوق مانتي وحبا مجوق مانتي وحبا مجوق مانتي ما أنتي عبد الحكيم إلهي هون حريستي عدالة مربو أديك عدالة ربا أديك النولا عدالة ربا ولكن الله في آخر لقى ما دقيستو إن بدو قد دقيستي وأنا أشاقي قفل انتي عدالة إلهي أكتسيت وكهليا إلهي أكتس وكدوديا إلهي أكتس ولكن عبد الحكيم دقالك أمحارة لو كجبسي أنا تليها عينك حمر جيدا اسبتال وحال لك يعني كويا الحمر جديد ونين هدي إليه والله فاك أبو عيرة وجوج جري إن عبد القادر سيدا أوجد مركي عبد الحكيم لكباي وعربدي الغرفتي أنا وان أجوبي وان كدوباي وحده هاي بل إنا في قلبي يسوي حجري عبد الحكيم وحده هاي ياسين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز الرحيم لتنذر قوم ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمون وجعلنا من بين يديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا فهم لا يبصرون وكسوا علني بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين دروا هذا كجر نفتي سوحا فيرناي بل إنه ده طلبالي إنه ده ناقتيدا إنه ده قريهيجا إنه ده أمحارة وحي كوينا يا فيرناي ياسين والقرآن الحكيم ساسوناي والله بالله تالله إلهي ما قدرت أحكي لهم إلا دروا هذا كبح هذا كبو كدب محمد هو يري وقت جيسي وحده مركو أنا أشياء واحد هذا عبد الحكيم وما أنت تضوب الدورة واحد ما أنت هذا أوجد دونا قلبي وحكي كوينا أرك دونا سيدا أوجد إنكم ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تقتسمون أغير إليه أكتسى مارتك دودي دونا كوي دلي عبد الحكيم كوي دلي إلهي أكتسى وكل دودي دونا بأي ذنب قتلت بأي ذنب قتلت سيدا أوجد عبد الحكيم وحواي دتك الشباب هذا ما غشي دولة ودولة شباب ويكو عدها دولة شباب شك مال إني الله شباب ولا شقيا هذا آمن سين عبد الحكيم شباب غرحي حدا كو قنع حبده مركي كل عين كل مادين ونتل أوجادي قدوميها الدقمة هروك هذا اللي أسوق شباب معها وأوجع عمر فين الشباب معها لكن أفكي سالو هالليا هالشيء أفكي سالو هالليا وهاللي اسكو دعو كل أنت دق أبوبسي شغال waxaa qabsaday kula najiis mar wuxuu u aarayaa walaaliis mariixan reediini mar wuxuu u aarayaa isku karis dadkii buuqi jiray iyo hooyooyinka dhibkooda mar waxa la dilayaa waqtiga ka dhamaanaya 17 bari 17 bari oo arta farmaajo wuu boobsiinaya wuu ka arsanaya sida awgeed walaal waxa rabnaa in adeesho annaka oo hawiyaa waxaan nolol ku haystaa maanta maxaa u ooyeysaa
aniga waxaa ligu cayaya jamaal maxaa ciddaadu u ooyeysaa qabiiliista uu leeyahay dee waxaan qabiil ahayn uguma haysto qabiiliista uu leeyahay qabiilkayga uu necab yahay reer miyi uu leeyahay qabiilkayga uu necab yahay aniga reer miyi ana jaahil ana jaahil ana jaahil ilahay qabiil iga dhigay wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilan nabigeena calayhi salaatu wasalaam kitaabka siirada akhri kitaabka rihaala saxiixaynka soo qabso xayaat saxaabaha soo qabso aba ayuub alansaari aba hebel aljumxi aba hebel aba hebel aldowsi aba hebel ilahay subxaanahu watacaala ou yiri wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ilan litacaarafuu ilahay qabiil naga dhigay wamandir cashiirata kal aqrabi nabiga la yidhi qu anfusukum waahlikum naaran la yidhi umulqura waman xulaa kadib la yidhi aayadihii qur-aanka iyo diintii ayay rabaan inay annaka nagu dabagediyaan waxay doonayaan aayad ilaahay soo dejiyey oo inaan isku garanno dadkayga uga naxo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu ka naxay xamsa cabdulmudalib markii la dilay wuxuu yidhi caawa magaalada madiina kulligeed waa ooyeysaa laakiin adeerkay xamse aniga bisaa u ooyaya yaa dhahaya nabigeenna calayhi salaatu wasalaam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam yow nabigu ka murgayaa intaasoo asxaabaa la laayay oo reer ansar owsi khasraja laakiin nabiga habeenkaas wuxuu leeyahay siyaarada aqriso dadkii dhammaa waa la dilay laakiin adeerkii xamse cabdilmudalib caawa aniga bisa ka murugsan u leeyahay guri kastoo madiinaa caawa waa laga ooyayaa laakiin adeerkii xamse wax ka murgaaya male oon aniga ahayn yaa saas dhahaya nabigeena calayhi salaatu wasalaam xabiib raxmaan walaa faqar habeenkii ilahay saas dhahay sidaa awgeed jaahil waxaa ah ninka aniga qabiilka igu nacab jaahil waxaa ah ninka igu diidan inaan gunuunaco oo ooyo oo dumarka nagu dhahaan maxaana loo dilayaa ninka ii quuri waayey ayaa jaahil ah xasid ah xiqdigii ka batay waana walaalihii daaro xiqdigiiya idinka batay ooyin iima quurtid war hay dilin war dhibka iga qaad war walaalo waxaaga yeelo intaasaan igu haysataa jaahil igu leedahay dhuntaa igu dhegan tahay waa isbaaraysanaysaa xoolahaygaad qaadanaysaa dadkaygaad dhibaataynaysaa dadkaygaad dilaysaa ilaahay ka baqi maysid waa imishimaysaa diin ma taqaanid laa ilaaha illaa anta subxaanaka kadib anigiyaad waxaad ilaahay saas waad dhimanaysaa anna waan dhimanayaa ilaahay agtiisa aanu ku doodi doonaa adigoo qaatay xaaraan adigoo xoolahaygii qaatay adigoo ilaahay ku been abuurtay adigoo dembiilaa adigoon dil lahayn adigoo ku diganaya hooyada muqdisho joogto markay hadasho ilinta iga imaanaysa aniga markay hadasho ilin baa iga imaanaysa markay oyso ilin baa iga imaanaysa sidaa awgeed walaalayaal ilaahay wuxuu nagu abuuray qabiilka in aan isku dareenno hooyada inaad hooyada kale ka jeceshahay aabbaha inaad aabbaha kale ka jeceshahay walaasha inaad walaal kale ka jeceshahay in adeerka inaad adeer kale ka jeceshahay arrinkaas waa waxaan wax ku qaybsanno waa waxaan wax ku leenahay waa ku kala degnaa geelaan ku kala suntannaa sidaa awgeed aniga qabiilkayga cayha iga dhigin qabiilkayga cayha iga dhigin qabiilkayga waan ku faanayaa waddankan finland markaan imid qabiilkaygaa laiga qoray jamaal adiga yaa tahay hawiye yaa ka tahay hiraab yaa ka tahay habargidir yaa ka tahay cayl yaa ka tahay ra'yaana laiga qoray kadib baa la yidhi codkaan kaa duubaynaa inaad sidaa tahay waa u qoran tahay qof walba qabiilkiisaa u qoran dal walbay u qoran tahay sidaa awgeed waalayaal kitaabka qur-aanka kariimka yaa ilaahay qabiilaad noogaga dhigay ilaahay subxaanahu watacaala kitaabka riyaala saalixiinka sheekh kasta akrinaya kitaabka fadaa'isha ugu badan iyo siirada akriso asxaabi qabiilkiisa uusan la socon male hawiye keliya miyaa qabiilkiisa ceebtahay hawiye keliya miyaa qabiilkiisa cabta bal u fiirso walaalka daaroodkaahu anigu kuma haysto dekadda aad ka dhisanaysid meeshii la dhihi jiray oo dekadda kismaayo qaarto kuguma haysto xildhibaanadaada kuguma haysto farmaajo haddaa xildhibaan ka dhiganayso kuguma haysto waxaan kaala hadlayaa waxay tahay hooyooyinkaygii baa oynaya anigaad ikusukay karsatay anigayaad idilaysaa anigaad mas-uuliyaddeeda sheegatay dhibaataynaysaa dhibka ha layga daayo rajaday adduunkaad la tirteen waadna rajo tirteen waadna rajo tirteen waadna mayd garaacdeen dadka nigayaad dhibaatayseen indhihii baad naga bixiseen laa ilaaha illaa anta markaasaad haddana gunuun ciyaad inaan oynaa noo diidanta inaan oyno ilaahay baa idinku dhaarshiye bal ninka soo qoraya saakii oo nagu diganayo leh mucaaradkii ayaa $8 soo siiyey hooyada hawiyo oynaysa wiilkaygiyaa raba habarta hawiyo leh ilaahay baan kugu dhaarshiye ka war isku karis keligaa canshuur bixi keligaa ha lagu caayo sidaa awgeed waalayaa weer iyo ari ma wada noolaan karaan
weer iyo ari ma wada noolaan karaan 500 ariya 3 weer haddii ay kugu soo darsanto ariga waa la cunaya walaalaheen inta caranka cunta iyo inta cawska cunta waa inaan xuduud kala yeelanaa gurxan iyo ciddi iyo mici ayuu nagu dilayaan aniguna orod iyo fadal iyo ruugmo ilmaha hawiyuhu ay dhalaan iyo ilmaha ugaarta way isku miisaan ilmaha ugaarta waxaa cuna weer iyo dawo oo dhan qaraja diiriyo miran bahalka wax dila dhurwaaga iyo labaxay dadka u jecesha ayadoo ka baqaysa laakiin wuxuu dilay la cuntaa dan kamale la ogisi iyo ari iyo sidaas noogu diganaysa qaraja iyadoo xamar joogta sidaa awgeed walaalayaal waxbaa nagu dhacay oo mara guduudan baa madaxa noogu xiran ooyeynaa oo ma naga dhammaanayso guri kasta maanta waa laga ooyayaa oo qof hawiyahu joogo guryaha qaarkoodna waxaa lagu cunayaa hilbaha kuwa ooyaya qayb ka mida ayaa lagu cunayaa guryaha walaalaheen daarood waa nabad galeen kulleertiga laisku haysto waa kayga waxa hadday hooyo 80 jiro hawiya oo isuwa dambiile isbaaray galinsoor u taalle isbaaraa u taalle bandiiradley isbaaraa u taalle gurceel fiqi walaalkay waa la hadlay gabdhihii sacad maanta waxaan kaa rabnaa inaad gurceel timaadid inaad dhuuso mareeb timaadid inaad matabaan tagtid inaad haddii ilaahay ku rooyay abgaalka la qaado warsatid inaad mursadaha warsatid fiqi noo dhammaystir khayr allaha ku siiya noo dhammaystir tahriibaan nahay askargaal shiraha ninkii gacan noo taaga waa iska salaamaynaa waana loo kaga daray oo nala caburiyey oo nala tolay dowladdii Soomaaliya dhibkaasna haysta dadka nagoo wada ooyaya telefishinkii dowladdii farmaajo waxay ka hadlaysaa Joe Biden ayaa xafiiskii la wareegay shidana bashadan ma him bini aadan caadiga sida loo ixtiraamo xataa looma ixtiraamo dadkii ingiriisku uu gumaysan jiray oo ciidanka uu ka dhigan jiray sida xataa looma ixtiraamo sida awgeed walaalayaal waxaan rabnaa inaan idin sheego aniga wax rajaa oo tiro badan oo qurux ah oo aan ka sugayo farmaajiyi cidiisa ma jirto haddaad ka sugaysid adigana batarigaagu waa low waa dhici doonaa mar dhow dhacaya batarigaagu waa low cid kasta oo qoorqoor goodlawe iyo cumar finish waxaa loo isticmaalayaa inta ay joogaan si daran ayaan u dhiig baxaynaa maxaa yeelay luquntanadii ayaan waxaan u dhiibanay sida farmaajaba uu sheegay wuxuu dadkan waxaa laga soo gelayaa kuwa ugu sarreeya isagaa nooga dhigay waa noo sameeyey kadib baa jilbaha dhulka in loo dhigo waqti dheer ayay qaadanaysaa waa in jilbaha dhulka loo dhigaa jilbaha maanta dhulka naloo dhigay mariixaan ayaa muqdisho nagu dilaya markaasaa annakoo cayra tarbuunka cabaadaynaa markaasaa life la soo qaadanaya muqdisho ayay derbiyada bay dabkay shideen mariixaanka dabka shidaay meesha la dhihi jiray bar meesha la dhihi jiray cabud waaq waa wadaniyiin mariixaankii calanka ka taagay Ethiopia waa wadaniyiin waxa la isku haysto nin kasta wuxuu soo qorayaa odawaa iyo fiqi iyo hebel xildhibaanadu waa in laga wareejiyaa war mariixaan oo farmaajo xildhibaan ka dhigta ma idinku haysto aniga farmaajo xildhibaan ka dhigta wax dana kama lihi xildhibaanada mariixaan waxa la isku haysto oo shirkada anigu waxaan ka hadlayaa waxay tahay dhibaata dadkaygii la gaarsiiyey kuwii la laayay cidna looma soo qabto qoorqoor waa macamiil way xaqireen walaalahay Saleebaan cadaada dadkaygii ku haystaan horaan ugu sheegay kuwoodii kalena waa la dilay waxaan caraadinayo oo dhintay oo baqtiyey oo tolka waayey oo ugaaska waayey oo nabadoonka waayey waa cayr Soomaaliya hawiyey ka dhimatay oo wax iska fuji waayey habar gidirna cayray ka dhinteen oo waxba iska fuji waayey qoorqoor ma laha fiir qoorqoor islaamiga sallallahu alayhi ku banaan bixeen hotelka gadaal inta ka wareego cadaada iska ord ta dhagaa soo laabto soo galay waaba ninku waalidkiisu inta dhan yahay ee aan awoodo inuu yiraahdo hooyooyinka qoorqoorow nala hadal inuu la hadlo ninkaas doonaya inuu hoggaan noo noqdo islaamo walaalihiisa oo madaxweynaha meeshan ku jira inta maqle qoorqoorow ina haleerow nala hadal leh oo gadaal inta ka boodo xarag iska soo dhigay inta kaba labada gal cusub gashtay hogaamiye ma hadduu hogaamiye yahay waa ka faa'iideysan lahaa hadduu hogaamiye yahay wuu la hadli lahaa sidaa awgeed kaasaa annaka cayra noo taliya sacad weliba gacani isaga haya
وأيك أقول له دجاج سمستي أنا كقول دجاج أسرع نو سميني قف عيرو هدلي كرم ملء جيس كستو ولا كسو قالي هو مرين ما هينو صدح بالمركي اللي تجوجو هذا وحلا بالله بجد كنوس مريم يقول عليه يسال على نساء واجو هروح لهم ما وليد كوبيو هذا وحلا يسكون ما وليه إيربور كنوس مريم على ده حدي جورجو هو يوينك نوس مريم على ده حدي دي إلهي كرويه جد كنوس مريم يسال نساء وحدث يسبنجي عدونك سديد بلد والله ولا شيء كناس سيدا أوجد ولا يال هذا عيرته هي بتري جوال لو بتري هذا عيرته هي أغلى جوال لو بتري هذا عيرته هي قبل هذا جور ملء هذا عيرته هي سوماليا وأن شرعي كجرن أياد ماملك كجرة ملك استوحد كتها خلهوسي جنجل لو أيا كجرة نولش اللي يسكعون يا سوماليا نول باو أفريقيا ماشوا ملحدة كي هي ومغايات أسوق أولية صور بأوريجينية ده ترى بدنا تهي سيدا أوجد وإنجل بحر لكل ودقة عدول بو يكود ليسا قلب قلك كوس يكود لي سيدا أوجد واحد ربع ما دام أوكتي إنها دمانيسيد وأد أوكتي عدو وإنه يكود لي واي عدو جاجا أدقرت أقول بنيسا واي غور لو واي حل ما نعيرة وقل مدوجا ويرى هذا ستوب dadka naga dhuusan reeb jooga waxay sheegayaan shabaab meeshan soo maraya ilmaha naga ayay dantooda ku jirtaa hadaan ilmaha iyo shabaabka la isaga dhigin dhurwaa dadku ma la dagaal lahayn qoor wuxuu doonayaa sida muqdisho in shabaabka laga aamuso ee shabaabku oo walaal noqdo reer dhuusan reeb ay la qabsadaan dilkooda aan loo sheegin saacadu rabo uu soo galo ciidan uma diyaarin waxba uma qabanayo waa fulay waa ninka ka baqay ee raboolka dhuusan reeb inuu ka soo dego سيدا أوجد ولا ليال مال ديران كنا عني وحنا إذن شاقي مركان إذن لها والمعلم محمود يا شيخ شاكر راحوا ما دينا محاكم بدلني لا إله إلا أنت سبحانك دتك عير كاهو وحنجلينا فيلم كي جبانك وبروسلي شان يتمنى ما إجدبا سعوتا اسم إنا استاقينو مربا مدى سوقلا ولا طورا مربا مدى سوقلا ولا طورا جمالو أنا كفلن إنا هذا الشيء هل حبان إذن شيقا تولكي هويو هل حبان إذن شيقا خليجة ديرية دقمري كبرنا بحيسا ملهن تولدي ليده ملهن خليجة ديري وحي ماشي أي كنوشة هبرتاس عمرتها والسحرك كنا قنتا ماشي كنوشة متغنين أفكك هذا الشيء هوي وحن فهمسي وهي هذا أرجع أبو نقفلن أرجع نقفلن ورفيل لنا نجوع دور كذا نيجا هذا الكان نقول دقن عدك نقول دقن إن هذا الوح لو قبصده قد يجديري هدو دني حمر يمادو هريك عزوميسا والدي ليسا ويأكتب مجرتين واي دن كمالي دني حلمان مسينا قد يجديري لكن قد يجديري هويها الحديثة أيضا مالنا كلهين أي حلمان كغادتها دات كان هويه يقول نعرتها أيك وقفت بدنتهي وحي ما أنت غيرتي قف هويه وحل سوقبتي أما مدحوين السنة أمر رئيس الوزراء أو نكسان إنو سجل رئيس الوزراء دالك سومري nin mariixaani wanaagsanaahay tiri waa yuulka kaasaan dadku ugu dhawaa madaxweyne kana u fiicanay tiri xilkan xagee ka dhaxlaysaa weligaa miyaa aragtay weer dhahaya ariyow thank you very much ari ma dhahayo weer waxsanto weligiis ma dhahayo si kastoo u laayo weer iyo ariyaa gardaran si kastoo u laayo sidaa awgeed walaalayaal aniga murugaa haysa muruga xaddaaf ah haysa dadkayga indhihii laga bixiyey tobanaa loo dilay weli dambiilaan ahay oo waxaa dembigaas ii yeelaya walaalahay mariixaan dembigaas ii yeelaya cabdixakiin dhagajuun 500 ka badan oo qof ayaa mariixaan xamar ku dileen iyo arrawnkiisa oo cayr kaliya ah oo xabad fakatay iyo gaari fakaday iyo xabsi iyo jirdil iyo mishin iyo bajaaj ay ku dileen markaan sheega weynay ila lo aan nahay idaan nahay ay waxayna soo ag dhigayaan kii cayr oo dhintaba siraajiisa soo ag dhigayaan kana cadaalad meelin kuwaas waxaan rabnaa
dhuusa mareeb inay ka dhex doodaan fiiri haddaan dad ahay mariixaan dhuusa mareeb maba ka dhex hadli lahaynba 90 kilomitr u jiraan ma shan caleemood 90 kilomitr muqdisho u jiraani shan caleemood muqdisho inta degan iyo mariixaan inta degan dhuusa mareeb yaa badan kun mar shan caleemood muqdisho joogaa badan maxaa laga siiyey geladiga degan afgooye muqdisho maxaa laga siiyey laakiin hadalkii afkiibaa juuqda gabay isaaqa xamar joogaa hadal ku joogaa khadiija diiriye islaan majeertoonaho joogta garowbay hadal uga baqaysaa adigaa hadli waayey gabadhaadaa hadli weysay markaasay korkaaga soo kaadisay markaasay kugu digatay markaasay kugu taagan tahay markaasay ii xaqiijisay in hawiye ay god kusoo ogaatay khadiija diiriye waxa ay sheegayso sixir ay samaysay ayaa u sababa way ku qanacsan tahay way hubtaa in hawiye tagay khadiija diiriye way ogtahay maxaa cumar dalxa markuu habargiirta u yimaado hee habargiidir haddaad tihiin galmudug le ahaada u yidhaha markuu majeertoon ku tagana 3 bilood madaxweynihi la igu yeero waa 3 bilood dadka naga lalaynayay oo lahaa qaxan qaxa ka horreeyey dadka hala baabi'iyo u lahaa laa ilaaha illaa anta subxaan wax kale nama haystaane xasuustaa nugu yar tolow xasuusta meeshaan ka nimad xasuusta meeshaan u soconnay xasuusta 60 sano ka hor xasuusta 30 sano ka hor xasuusta walaalkaa wixii ku dilay xasuuso war ha iloobin war maalmo keliya ha baraarugin war ha noqonin daanyeer laa ilaaha illaa 300 oo daanyeer ayaa hal galleer daanyeer ka qabsaday miciyow leeyahay hadday baalasha qabtaan waa kala jari karaan ma iska dhicinayaan marba mida soo aada saasuu leeyahay baalashu saas leeyahay baal bisow haya ayakaa miciye el kale hal maray qaban karaan waa jarjari karaan galleerka waa ku hor qaatay cunugooda waa qaatay ilma adeerayaalow galleerkaasu wuxuu hubiyey in wuxuu daanyeera yihiin khadiija diiriye waxay ogaatay in hawiye daanyeera yahay ogaatay inuusan xasuus lahayn ay ogaatay dadkanaga waxaa la ogaaday inaysan xasuus lahayn kuwa ugu xasuusta yarna cayr waaye kuwa ugu xasuusta yar hawiye waa isku nooc waa isku oday waa wada haddii ilaahay ku reeyay waa isku awr laakiin waa si kala qalbi xaaran yihiin qolo walba qoladay kala qalbi xaaran tahay ayaa looga laysma badan yahay sidaa awgeed waalaya xaq waxaan u leenahay in aan isbeddel samayno mustaqbalka naga ku saabsan xaq waxaan u leenahay in wax noo maqan lama arkee qof walbaa fursadda uu ka faa'iidaysto maanta cayr waxaa ka bannaan fursad hogaamineed nabadoon male ugaas male siyaasadda wax u matala male gobollada dhexe wax wakiil uga male alla fursadda taalla weynin badana way samay karaan kuwa lacagaha hay-adaha ka helay aakhire janno ku geli mayaane waa lacag xaaraanahe ilma adeerayaalow aakhire janno ku geli maysaane lacagta ku bixiya dadkiina lacagtaa siyaasadda ka hesheen siyaasadda ku bixiyo dadkiinu ku matala sidaa awgeed walaal waxaan rabaa inaan dhaho ilaahay ha kuu naxariisto walaalkay cabdixakiin dhagajuno ilaahay ha kuu naxariisto walaalkayo xaaskaaga ilaahay qalbiga hau qaboojiyo waa dhammaanay 30 sanana la dilayaa gacan naga xaq daran baana dilaysa ma annaka bisayna dilaysaa dadka annakaa ugu soo horreyna 3 beryaan xanfafaynaa xasuusteennu waa xasuus daanyeer fahmadnadu waa fahmad lo-aad iskuma hiilinayno waxaan rabnaa inaan magaalada ku joogno hal 10 nin oo cayr oo muqdisho joogta oo 10 kuba anigoo Finland jooga aan u kala garanaqaayo ayaa waxay doonaysaa dad inay iska dhiciyaan laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin laa ilaaha illaa anta subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin innakum maytun wa innakum mayituun thumma innakum yowma alqiyaamati cinda rabbikum takhtasimuun waa dhimanaysaa anakuna waa dhimanaynaa ilaahay agtiisaana lagu doodi doonaa laisku warsan doonaa adduunka qurux kuma joogno adduunka talaa lagu joogaa magaalo cabashaa lagu joogaa magaalo qoraalaa lagu joogaa
magaalo ciddii wax kaa dish inaa xusuusto lagu joogaa magaalo qiimaha qofka qabiilku magaalada uu ku yeelan karo waxay tahay inuu xasuusto ciddii dishay inuu xasuusto ciddii wanaajisay inuu xasuusto qofkii laga dilay inuu xasuusto qofkii ka dilay inay meel ugu qoran tahay inay u duuban tahay inay marag iyo markhaati u leedahay miisaanka magaalo lagu joogo taas waay taasna walaalahay cayr male sidaas waaye waxa Khadiija Diiriye haddii beri farmaajo u tago ay u noqon doonto gabar cayra sidaas waay sidaa awgeed walaalayaal aniga mara guudan baa ii xiran maradii guudnooda kale waa waayey waxay igu xiran tahay inaan gumoobay in meeshii la dhihi jiray xirsulugay oo cabdixakiin dhagajoon ka qalan yahay in shabaab dowladda farmaajo iyo ayaku ay isku milan yihiin inay isku sid noo dilaan haddaad qarax ku dhimo weysid in baratig lagu dilaayo adoo naftii aysa kaasii bixinna lagugu marag furayo isku dhac inaad ku dhimatay oo xabad aaridi lagu sii masa badanayo dadkayga oo yaqaana gaari la xabadeeyey expert ku ana ay dhegaysanayaan oo loo sheegayo sidii in aan nahay annaku say wallaahi maraykanka iyo ingiriiska jooga oo kale inaan nahay ayaanu kugu warramaya maxaan naqaanaaba magaalaan joognaa dagaal bisaanba naqaanaaba gaari la xabadeeyey soo u leexday si quman soo ugu yaallo xabadaha la suurida dhankay ka soo dhaceen inta xaboo ku dhacday intaasaan fahmi karnaa waa la dilay walaalkeen waa la dilay kulanajiisii farmaajaad dilay tol helayo waa la dilay maaha in dad aan laka dili jirin ee waxaan ka hadlaha waxay tahay inta hartana in la dili doono maadaama waxa la dilaya ay qoomiye tahay ummad markay tahay ummadaa la dilaya ummad baa la dilayaa dhiiggaas madaxa guudana marada igu jirta waa ummad la dilayo waa rohinge waa dad la dhammaynayo waa dad ciil loo qabo waa dad dhan kasta loogu heshiye in loo dilo waa dad qosolka ayadoo laqoslay la laynayo haddii firi farmaajo taleefon saaka usoo dhaca wuxuu u jecel yahay taleefonka Kismaayo ka soo dhaca iyo taleefon garow ka soo dhaca 10,000 oo hooyo oo Muqdisho joogta hadday ooyeyso farmaajo John Biden xagu maraya John Biden xafiiskiisa ma la furay saasay leeyihiin waa sida galeyrka qabsaday daanyeerka 5,000 oo daanyeero meesha taagan saa u leeyahay danka ma laha gacmihiisa isma bedelayaan tashankiisa daanyeerka uu ka haystaa ma isbedelayo saasuu leeyahay baalal bis uu leeyahay ilka male gacmuhu ku haystaa kama dhacsanayaan ayagoo miciyale ilkale ilaahow daanyeernimada naloo arkay inaan iska bedelno na fahamsii ilaahow daanyeerna naloo arkay aan miisaan lahayn ilaahow idaa naloo arkay karaamadeenii soo celi ilaahow karaamadeenii soo celi ilaahow waa nala dulmiyey nagu filan wixii nagu dhacay sidaa awgeed waxbaa nagu dhacay war Saleebaanow markii labadan public waxayna ka leeyahay noo soo daaya dadka dhus cadaada nooga xiran war Saleebaanow waa lagii soo dheelaalaba in ku gelin war Saleebaanow maanta adinka madaxweyne ka agal mudug war Saleebaanow marixan idil ima soo qaban kartid war Saleebaanow anigoon dilin dadkayga aad aruursatay nimankii wax dilay Itoobiya joogaan ree ayaan la soo ma qabsan kartid ayaan loo dhan inaad odayaalkooda gacmaha ka xirtid baca madaxa u gelisid cadaad aad ku xariisid Saleebaanow dambigaas waa naga wada gasheen qoor kaliya nagama gelin oday malihidin miya war ma waydan ugaas lahayn war saabir nuur shuru wax ma gala miya war odawaayo ma wada macna lahayn war Saleebaanow naga garbaxa oday waa weyni war ana cayr ugaas u ah war ana cayr afhayan u ah war ana cayr afkooda ku hadlaaya war haddaad waala aan nahay war haddaadna qiimaynaysaan war haddaan da'in ka weyneed nahay ilma adeeryaalo waa dulman nahay gacmaha hanoo qabanina weligin cadow gacmaha idiinmaanaan qaban jirin haddii ugaaska ceyr hadli waayey oo nabadoonkii ceyr hadli waayey anaa idinla hadlaa Saleebaanow cadaada maaha magaalo qoor
المأذن كان نجنو سودايا وغرغور ظلمي ونوها يا نجا وغرغور ظلمي ونوها يا نجا قبطة والمأذن يلو هديك المأذن ولا جرتان مينان وين هديهننا أنك جيت بعبوعة نو قبننا جيت بعبوعة نو قبننا أفكي عيرة إنكو هليا أفكي أواسك هلويا إنكو هليا أفكي دتكس بابا إنكو هليا أفدت ربنا ونولان دونا ونكربت كدلان دونا وفهم دونا إنكو هليا المأذن ريال وعليه مدرك عيسو سليمانو سيدا نوداما ورعيرو تشو إله عبد حكيم وكون حريص إله عبد حكيم وكون حريص إله هو النمشمين سري عادي نودلين إله هو آمن وانا خيامين إله ربي الرحمن وانا كركريين إله هو الظلمين وانا بين أبورتين إله هو يكون دكتين إله ببريها أنكو بريينو وعن عبانينو وين نبسدين إله إنهم كبرينين نو ديديهين إله ربي هيريا نصارى نغاغات إله هيريا نصارى نغاغات إله هيريا نصارى نغاغات إله ربيو قلبي أنا حنوني هويوينك نغو أويا ونغو ديغانيا والله مريحا هويوينكو أويني وكمان ديغان جرين هدي قلبهاري اللي قد باتي كيات الله وكحو ما جرني إله يو اسكو سومالي ماهن اسكو بني آدم ماهن وانا دباتيين اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا واجعل ولايتنا ولاية المسلمين في من غافك واتقاك واتبع رضوانك إله ربي ودتك يقوع فامسي وادب تودين لا إله إلا أنت سبحانك إنك كنت من ذلك